laga yaabo bishii September ee sanadkan wuxuu kulan magaalada Hargeysa idinku dhex maray siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo waqtigaasi ka tirsanaa xisbiga kulmiye maxaad nooga sheekan karaysaa kulankaasi uu daarnaa labadiina siyaasi oo Soomaaliland dhan deelayda ka wada garanay dabcan Maxamuud wax cusub ma aha waa niman soo wada shaqeynaa kulmiye wada ahaan jiray oo asxaab ahaan jiray oo cabinetkii ama waxay goli wasiirada ku wada jiray oo marka ma sabab isu kay diidaysa ma jirtay maanta koobadna maana kullu boqol goobada horaan ku kulanayo marka tanuun ba public maala loo soo bandhigay laakiin boqol goobada horaan waan isku aragnay boqol goobada horaan waan afkaar isku weydaarsanay marka wax cusub ma yahay inay Maxamuudna kulanaa wax siyaasadna kuma jirin wali isaguna waa kulmiye anuna wadani baan waqti uu Maxamuud Xaashi doonayay in uu hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye uu qabto ama mataqaana uu tartamo ayuu kulankaasi ku soo beegmayay ka xirsi ahaan arrimahaad ka wada hadasheen midya laba ma nooga sheegi kartaa maya wax cusub oo aan ku sheegay inay Maxamuudna kulanka iyagu ma cusbayn arinta kulmiyeen anigu waxba uga matari anigu kulmiyey aan kulmiye wani ka tagay marka anigu mana codeeyni kulmiyana wax gaar ah aan uga doodayno oo uga sheekaysanayna ma jirin laakiinse waxaan laba nin oo macrifada iyo saxaafadda soo dhaxaysay inaan kulanaa war xagee ku maraysaa xagaad wada iyo inuu personal sheekadeedii naga dhaxaysay iska sheekaysano wax dhaafsiisan maaha inaynu iska wareysano dabcan mustaqbalka iska weydiino maanta maxaad wadaa xagee wax ku maraya wax iska caadiga dadka saaxiibada ku kulmaan ku kulmay marka ma waxaad leedahay kulan siyaasadeed ma ahayn of course laba nin oo siyaasiyiin oo kulmay waa kulan siyaasadeed waa kulan siyaasadeed laakiin arrimaha adiga weydiinayso ma ahayn waa si wanaagsan oo kulmiye wax ku shaqale ma ahayn